الجزيرة وصوب بندقي وبرامج قبرها عن كفا فاهني intaas ay muujinayso in ugu yaraan 8 askari howlgalladaasi lagu dilay isagoo qabiilka ka tusaale qaadanaya inta ciidan ee saaran taangiga markaafa iyo saraakiisha hogaaminaysa ee dagaalka iyo waliba guud ahaan qasaaraha dhacay marka wuxuu leeyahay maalmihii la soo dhaafay ciidanka Israa'iil halkaas howlgal waxa dhici karta in 8 askari lagaga dilay dhinaca kale wargeyska lagu magacaabo Haaretz ee Israa'iil ka soo baxa ayaa goor dhaweyd war uu qoray waxa uu kaga hadlay qaybta ay ka kooban yihiin ciidanka Israa'iil dagaalkan ku hoobanaya hadaba wargeysku waxa uu sheegayaa in kalabar in ka badan lagu soo waramaya askartan inay ka tirsan yihiin ciidamada kaydka wuxuu leeyahay wargeysku saddexdii ee askari ee dhimataba ugu yaraan mid ka mid ah ayaa waxa uu yahay buu yiri ciidamada kaydka waxaana wargeysku uu sheegayaa in boqolkiiba 50